بسم الله الرحيم. اللهم صل على محمد. سود هذا خياري مركله إن شاء الله تعالى. waxaan rabaa inaan casharadana sii wadno. waxaan maalin ka soo hadlay database kan si guud uga hadalay. maanta cinwaano ayaa dhowr ayaan qaadan doonaa. database wixii ka haray waan dhamaynaa insha Allah ta'ala. database maalin waxaan idin sheegay database hadaan mar labaad aan soo dulmaro. database waxaan ku sheegnay inay ahaayeen oo maalinkii aan soo dhignay inay ahaayeen integer waan soo aragnay, inay ahaayeen float waan soo aragnay qaybta labaad ay ahayd, inay ahaayeen allahumma salli ala muhammad sallu ala rasuul, midda kale inay ahayd double inuu ahaa midkii marka labadaas intaas waan soo qaadanay. database-ka saddexdaas waan soo qaadanay. waxaan maanta ku dari doonaa insha Allah ta'ala laba kale ama saddex kale aan qaadan doonaa insha Allah ta'ala oo ay ugu horeyso. waxa ugu horeeyo oo aan soo sheegnay jar waa hal xarf haduu data tahay. hadduu variable ama identifier ku haduu yahay hal xarf darabtina ku kaydsato jar ay isticmaaleen. hadday xarfo badan yihiin waxaan isticmaalnaa string. diiwaan ka xusuusto waxaan damcay inaan marka hore aan iska daayo inta badan maadaama aad loo isticmaalin, laakiin waan ku darayaa. waxaa jirta variable ay qana asagana bool oo boolean laga keenay, boolean algebra ama boolean algebra ama bool ama boolean algebra waa 0 1 ka waa inta badan boolean algebra qiimaha ay qaadato waxay noqotaa ama waa 0 ama waa 1. haddaan si kale u dhigno waxa waaye waan sii sharixi doonaa. waxay noqonaysaa 2 ama waxay noqonaysaa false ay noqonay macnaha labadaasna ayagana waa database waaye. ayagana waa database loo baahan marka qaarkood oo kale aan isticmaali doono insha Allah ta'ala. marka maanta hadda intaan qaadan doonaa hadduu Ilaahay dhaho insha Allah ta'ala waqtigu noo saamaxo saddexda marka aan aragno database-kooda sida uu noqonayo insha Allah. meel cusub taga marka waxaan rabaa insha Allah ta'ala waxaan qaadan jirnay include input output string using name space std. name space standard waxaan noo dhahdaa main. halka marka waxaan gelayaa markaan dhaho main inta waxaan gelayaa markaas database-ka marka qornaa. database-ka qaanuunan ku siiyey ama rule aan ku siiyey oo database-ka sida markii variable la qeexayo waxaa la qoraan ku dhahay marka koowaad data type-ka la qoraa, kadib waxaa la qorayaa variable name-ka la raacina, kadib waxaa la qorayaa qaadada waa intaas. hadday badan yihiin comma sii raacso variable 2 variable name 1 kaloo kaleeto variable name 1 oo kala laga yaabo inuu noqdo haddana var 2 haye var 3 hadday isku data type yihiin waa hadday data type kala duwan yihiin data type-kiisa mid kasta wuxuu gooniya u siinay. inaga marka hal aan rabo inaan ka soo qaato marka meeshan waxay dhahdaa tusaalahan kaleeto jar inoo dheh jar variable-ka waxay dhahdaa xaraf wuxuu leeyahay leenahay waxaan qorayaa a ka soo qaad. marka hadda waxaan declare garaynay variable loo yaqaan xaraf. data type-kiisu waa jar, qiimihiisana waxa waaye waa a. value-ha ku jiro xaraf waa a waaye. marka saasaa u kala qaadaysaa. waxaad leedahay variable-ka data type-ka iyo waxa u kala qaadaysaa iyo maxaan ku dhahaye iyo variable-ka data type-ka iyo qiimaha ku jiro ayaad kala qaadaysaa. okay intaas marka halkaas ay noqonaysaa. waxaan leenahay variable-keena waa xaraf, data type waa jar, qiimaha ku jirana waa a. waxaan leeyahay mar kale data type-kan qaadanayo waxaan leeyahay waa string. waxaan rabaa inaan qoro magac, variable-ka waa magac. waxaan rabaa inaan qiimo ku shubo. waxaan leenahay ka soo qaadoo kaleeto Muhammad. u fiirsa marka hadda waxaan samaynay variable dhahayo magac, data type-kiisu waa string, qiimaha ku jiro waa Muhammad. saddexdaas halkaasaan ku samaynay semicolon statement-ka ku xirmo. saddexdaas marka waa variables. waxaan raacinayaa bool. waxaad dhahdaa bool var ama bool variable aan ka keenay. waxaan ka dhigayaa markaas
soo qaado kale inaan ka dhigo true intaasna aydan qiimaansi boolvar wuxuu noqon karaa true ama false uu noqon karaa haddaan dhahdo ka soo qaado kale boolvar 1 true yaan ka dhigay mar labaad waxaan leeyahay boolvar 2 ama boolvar 2 waxaan leeyahay markaas asagana waxaad ii gelisaa false ii geli hadhow wax soo baxayaan ku tusin doonaa marka qaybaha koowaad waa declaration hadda marka waxaan isticmaalay markii variable hal meeshaas qaacidaan kugu daraya markii variable qiimo la siinaayo waxaa la maraa process laba ah ama saddex la maraa variable koowaad waa inaad declare garayso qaacidada qabso marka variable ka declare garayna waa tan qiimo siintiisa equal inaad isticmaashid oo assignment la dhahayo iyo inaad keyword ka soo geliso qiimaha keyword ka soo gelinta dib aan ka dhigi doonaa insha Allah ta'ala hadda waxaan ka rabay waxa waaye variable aad declare garaysay variable marka declare qiimaha siinay processka labaad marka qiimo siisa wadada variable declaration ku qiimo siintiisa laba iyo daabicitaankii hadda waxaan sameynay waa declare garaynay qiimana waa siinay wadada mid saddexaad ee waa soo bandhigitaankii inaan soo bandhigaa la yaraa marka waxaan leeyahay see out waxaad ii dhahdaa xaraf equal /t oo ka keenay tab oo aan ka wada space bix halkan oo kale waxaan leeyahay variable ka waxaad ii gelisaa xaraf aan leeyahay xaraf aan gelinaa marka meeshaas marka xaraf aan soo bandhigaynaa waxaan leenahay marka end line aan raacsanaa si uu igu xirmo line kaas mar labaad waxaan leeyahay soo bandhig maxaan soo bandhigaa uu leeyahay magaca waa waxaan leeyahay /t space aan bixinaynaa halkan oo kale waxaan gelinayaa magac oo variable ka wax ii wada ah intoo kale waxaan gelinayaa end line halkan oo kale waxaan leeyahay ii soo bandhig waxaan leeyahay boolvar waa /t markaan dhaho inta marka waxaan gashanayaa boolvar aan gelinaa inta waxaan gelinaa marka waxaan leeyahay end line ayaan leeyahay end line markaan dhaho labada variable intaasay noqonayaan midka saddexaad marka muxuu noqonaa midka saddexaad waxaan leenahay soo bandhig waxaan leenahay kan wuxuu ahaa boolvar 1 ayuu ahaa kan labaad waxaan leenahay boolvar 2 waxaan leenahay asagana ka siki xoogaa halka markaasaas dhahdid kan laftiisana saas halkan kaga xir waa iska shuutay wax qasab ma ahan marka waxay dhahdaa boolvar 2 kan horena wuxuu ahaa boolvar 1 inta marka waxay noo dhahdaa end line ay noo dhahay ayba inta aan rangarayna marka intaan rangarayna insha Allah ta'ala waxaan ku rabaa inay soo baxaan marka variable kaas waxay inay soo baxaan rabnaa okay waxaan leenahay marka ram inoo dheh waan save garaynaynaa waxay noo dhahdaa bool variables waxaan rabaa marka resultii soo baxay inaan idin tusiyo resultii soo baxay saan noqday waa kana waxay haysaa marka xaraf equal a magacana waa Muhammad boolvarka koowaad 0 boolvarka labaadna waa 1 meeshii true waxa soo baxay 0 true ku qoray wuxuu ku kala qoraa true iyo false marka boolvarkana saasa loo isticmaalaa haduu boolvarku uu yahay true haduu yahay wana soo baxay haduu false yahay 0 ayaa inoo soo baxayso marka taasna halkaas rabay inaad ka aragtid marka waa kana cashirkeena saan noqonaya variableska intii ka dhimayd halkaas aan baxaa marka intaasi waa qaybta hore ee variableska marka halkan programkeena hadaan mar soo koobo waxaan halka ku qaadanay
waxaan dhahnay waxaan soo bandhigay include variables header file-keeni waaye main waxaan leenahay data type-ka aan haysano waa waxaan meeshan ku digaargaraysanay 4 variable 2 buula iyo maxaan ku dhahay iyo 2 oo integer ah mid jar ah iyo mid string ah intaa markaan digaargaraysanay ayaa waxaan leenahay soo inaan qiimayaalaan siisanay processka koowaad waa digaargaraynay processka labaad qiimayaalaan siinay processka saddexaad waan soo bandhignay soo bandhigiina waa kana saana loo soo bandhigi karaa haddaad rabto waad iska reebi kartaa horena waan kugu sheegay oo waxay intaad iska reebtid kuwaan haddaad ka reebtid hadda waxaa kuu soo baxayo wixii aad dalbatay oo pure ah oo waxba la soconin oo macnaha ah haddaad rabtid inaad xaraf magac bool variable one bool variable haddaad gelis karid intaas waxaa kuu soo baxayso aan ku tusiyo tusaale ahaan oo kaleeto adigana assignment u qaad insha allahu tacaala inaad kala bedbedesho waxaa inoo dhahdaa marka hadda macnaha waxaan ka wadaa haddaan kan ka reebo maxaa soo baxaya macnaha case haddaan saan u qoro maxaa ii soo baxaayo oo aan helayaa saa haddaan ka dhigno maxaa soo baxaayo macnaha waxaan rabaa markaasoo kale waxaan iska reebayaa fariimahan rabaa inaan ka reebo fariimaha oo aan soo baxo program keligiisa soo baxaan ka rabaa program keligiis ama resultii keliya markaa inaan soo baxdo ayadana sidan oo kale u qoraysaa waxaa leedahay markaasoo kaleeto bool var 2 inoo dheh waa ka marka resultiga soo baxay sidan uu noqday markaa waa iyadoon lahayn wax fariima ma lahan maxamed 0 iyo 1 ama 1 iyo 0 xaraf variable iska lahaa maxamed kan waaye laakiin waxaan meesha caddayn dadkii kale lahaa iyo say ahaayeen iyo waxaas dhan kala caddaansho la'aantaas ayaan u qaadanay labadan program saasaan u kala qaadnay programkan sidoo kale ku fiican marka la soo bandhigayo inuu fariimaha la socdaana fiican instead oo sidoo kale bes u noqon lahaa laakiin labaduba waa ku bannaan tahay halkaas marka waxaan uga baxaynaa qaybtaas insha allahu tacaala halkaas ayaan ku joojinaynaa qaybta koowaad qaybta labaad ee marka waxaan rabaa inaan jabtarkan soo gabagabeeyo oo aan ku gabagabeeyo waxaan ku dhahayay 3 qodob inaan ku gabagabeeyaan rabaa اللهم صل على محمد halkaa marka aan uga baxo variable data typeski oo dhan halkaasaan ku xiraa